السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود دمانت وأنا سلام يا ميشا كجوجتان دنيا دافع هذا حرجينا sidaan caafimaad qoyn dadku caafimaad qabtaan alla caafimaadka ha noo sijeedsho waxaan doonayaa maanta in halkan barnaamij aad u xiiso badan idin soo gudbiyo kaasoo khuseeya nolosha dhabta ah ee ganacsatada reer South Africa nin dhalinyaro oo Soomaaliya oo aan isleeyahay ninkaas inta uu wareysi bixiyay in ka badan in la weydiiyo ayuu mudan ayaan xoogaa yar noloshiisa kamid ah iyo maaragtay adduunka kale inuu yahay tilka ayaam maalmo maaragtay isbedbedelayo oo dadku shaqaalaha u ahaan jiray ayuu maanta maaragtay isagu u shaqeynaya kii shalay isagu u shaqeyn jiray bari isagu u shaqeynaya bisna hantidiisu way baabi isa dib ay u soo noolaan mar raba inaan isku hordhaco isaga aad iyo aad inoo dareensiin doona daawasho waxaan asxaabta qaaliga fadlan subscribe iyo share iyo like ilaa ama asanta waa wadanka macnaha aniga dadka aan garanayo ee aan saaxiibada ahayn haddii aan qiyaaso ma qiyaasi karo laakiin adiga waxaan u maleynayaa taqriiban 200 waa ka badan yahay waa inta aan aqaanay ee saaxiibka ahayna la dilay macnaha wax alaaliye cid isweydiisana male maalin waxaan garanayaa waa waxyaalihii igu yaabadnaa macnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala igu galaday maalin baa anoo koofiyad dheer qaba oo wada socda yaa waxaa dhacday ilaahay amarkii balkaale meelay iga soo gaadeen madaxa inuu igu dhufto damcay boqolkiiba 90 Soomaalida South Africa waxa loo dilo Soomaalidu way dagaalantaa dadka hadda Etoobiyaanka iyo Bangladeshka iyo dadka kale ee Pakistaaniga lama dilo iyaga because marka loo imaado uu isdhiibaya laakiin Soomaaligu wuxuu taagan yahay macnaha isaga haddaan dhimanaya si xaraga la u dhimanaya marka jaakad weyn waan qabay xilli winter ahead ilaahay amarkii anoo socdo baan waxaan arkay koofiyadda iga dushay iyo xabadii kor martay gadaal baan fiiriyay marka koofiyadda socoto waa sii orday macnaha ma istaagin ba annagoo meesha ku xiran yaa 33 qof oo ka yimid Mozambique iyo annagoo 10 oo Soomaaliya hal qolana lagu xiray nimankii marka waxay sameeyeen inayna guumeystaan bay bilaabeen cuntadii bay naga qaataan bustiyaashii bay naga qaateen xilli winterna waa ahayd annagii waa tashanay marka dad waxa garanaysaa 2 bilood soo taariibay oo Soomaaliya macnaha tabartooda waa iska yartahay waa tashanay waxaan nimankaan iska celino haddii aan iska celinin waxa weeye sidaan kuma noolaan karno bas waxaan samaysanay saxamadii cuntada nalagu keenay baan arursanay dhinac baan dhiganay salaadii casar markaan tukanay baan ducaysanay adkaar baan akhrisanay saxamadina dhinaca marsanay hal mar baan dagaal ku bilownay جهاد في سبيل الله إن شاء الله لا يهديكم قولي إله أمرك دورني مكان ديك كأني ويعبسنا لنا بس كوسين إيه وصدني صدق أنا طبعا بعنا بس أسكرتي بالورد واقعي أسكرتي بالسوق الشيء وحلي يسوي وحدعين نمك وحب برنامج هو بحال يجو دقيقة إحنا الصومالي وانا ليس أسكرتي وحنا إذاك معناها أسكر بابتين بمعناها توقف أي صدني صدق قف كدش وحلي وانا لقراعي أنا نقض عليه نمك ويد إحنا دام كنا نقول الصومالي وندليه askartii waxay noqotay in meeshii noqoto macnaha TV xataa la keeno adigu anigoo xabsiga ku jira ilaahay amarkii ayaa waxa dhacday waxa la yiri qof walba qofkaaga waco maadaama nin walba macnaha qofkiisa qof walba ku saadaya ilaahay amarkii walaalkay oo nambarkiisa hayo marka ilaa iga soo kaxay Soomaaliya ayaan wacay nambarkiisa marka aan wacay walaalkay nambarkiisa voicemail baa iga qabtay aniga waxaan isla malaha ninka nambarkii baa ka damay malaha lambar kale u qaatay bas waa iska joogay ilaahay amarkii maalinkan saa u saabaxay xabsiga ma horta aanu xabsiga ku jira yaa waxa dhacday Soomaalida kale aan la xirnaa qof walba qof baa u yimid oo ka saaray ilaahay amarkii aniga yar kala isku saarnay jarkii marka qofkii soo deynaya yimid wuxuu yiri war adiga cid ku saadaysan ma haystid miya ma waan ku riniyo walaalkay baa waday isagana nambarkiisa ma shaqeynay saas aha ninkii baa isii daayay waan soo baxnay meel maqaxiyuna keenay cuntuna si khayr Allah si waa qabaysanay lambar baa la ii dhiibay xalay walaalka waca markaan walaalkay wacay nambarkiisa voicemail baa iga qabtay anigii waa shakiyay marka bas eedadii oo Soomaaliya joogtaan wacay eedadii marka ilaa 10 bari xiranay walaalkayba 10 bari baa la dilay anigana warka ma hayo marka waxa dhacday eedadii baan wacay anigina waa leelaa nuur ismaaciil miyaha inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun bay gutay eedo lambarba ii qortay lambarka ii qortay marka oday adeerkay yaale waxay gutay lambarka waa adeerka baale anigii waa naxay marka adeerkay baan wacay lambarkiisana voicemail baa iga qabtay ilaahay amarkii waxa dhacday eedadan ku sacay waxaan ku yiri eeday maxamed maxaa ku dhacay waxay u tiri eedan maxamed maalin 10 bari koor baa la dilay anigu macnaha wadanka waa ku cusbahay waa ninkii Soomaaliya iga soo kaxeeyay waa ninkii indhaha ii ahaa meelaha aadama garanayo macnaha waxa weey naxdin iyo bas ilaahay amarkii Soomaalida meesha joogtay baa qaaraanay wax ii guray ilaa Johannesburg baa la keenay Johannesburg markii la keenay tuulo kale gobol kale oo la yiraahdo Port Elizabeth ayaan tagay gobolkii marka aan tagay walaalkay marka wuxuu iiga tagay laba tukaan iyo baabuur bi iga tagay markaa laakiin lacag cadaan lama helin bas anigii marka nin aad u yarna waana xilligaas dad badan baa ila taliyeen
go-aan adigu waxaan ku qaatay inaan dukaamadii gadin oo aan shaqaysto anigoo aaminsan qadarta ilaahay iyo waxa weeye waxay u dhacay inaynu qornayn dukaamadii baan ka shaqaystay waxaa dhacday dhowr jeer ayaa laygu saagalay nabar dhuunta xataa iga yaala mar baa laygu dhuftay waxa weeye intaas jeer baa layga dhacay baabuur aan watay mar adeegiisana waa layga qaatay meeshii dhib badan baa igu gaaray anigu sidii iska daalaa dhacaya yaa ilaahay qudraddii waxaa dhacday habeenada ka mid a annagoo intaan dukaankii nabad ku xirnay casheynay ayaa qaylo soo yeertay qaylada markii soo yeertay in baan fiirinay mise waxa weeye afarta qalbaa la isaga yimi adigu dukaankii waxaa dhacday boob baana lagu bilaabay labadii wiiloo shaqaalaha ila shaqaynayay waxay dhaheen niyow annaga maadaama khatar aan gallay baabuurtii booliska noo yimid waxay dhaheen waan raacaynaa because nafteena u baqaynaa anigii dee waxaana nin lex jeclaloo lex jecla ay qabatay bas waxaan ku yidhi niyow saas ahaa iga tagaan ku yidhi anigu xantideedaan ku dhex dhimanayaa askarigii booliska marka waa iga tegay wuxuu yidhi my friend aniga mas-uuliyaddu waxay iga saaran tahay inaan naftaada badbaadiyo saas ahaa waxaan ku yidhi aniga hantideeda aniga nafteeda iyo hantideeda badbaadiya dii kale waa sii daa bas ilaahay amarkii askarigii wuu iga tegay marka waxaa dhacday dukaankii marka waa 2 qol buu ahaa dab baa laygu shiday marka si lay arkay meeshaan ku jiro dabkii markuu igu soo weynaaday aan arkay in lay arki rabaan albaab gadaal ku yaalay baan ka booday xaafad aan islaan aan isku fiicnayn oo dadku dad fiican waa leeyihiin dad xun waa leeyihiin islaan aad u fiicnayd baan xaafadeeda galay qol dambe i gelisay sariir bay hoos gelisay dukaankii meeshii buu ku ololay ilaahay amarkii boolis kala yimid boolis markuu yimid baa habartii u baxday waxay tiri my friend halkan ku jira gurigayga booliskii baa iga yimid meeshii iga qaaday habeenkaas waxaa iga gubatay haddii aan ku qiyaasay adiga $30,000 meelahaas baabuurna horaa laygu dhacay ilaahay amarkii waxaa weeye markaa lacag caddaana oo macnaha dhul ii taale ma lahayn dukaanka xilligaas xilli aan camirtayba waxaa dhacday meel cidlaan soo istaagay dadku waxa weeye markii waxa weeye hanti badan dhaafto waxa weeye stress baa ku dhaco waxay dhahan see hantidan kugu dhaaftay iyo macnaha aniga waxaan idhi niyow hantidan ilaahay baa ku siiyey imtixaanna way ahayd shaqayso hadduu ilaahay caafimaad ku siiyey ilaahay wuxuu qadaray ninaa ani ii shaqayn jiray inaan u shaqo tagay ninkii marka xilligaa ani ii shaqaynay si fiican baa ula dhaqmay si fiican buu ila dhaqmay muddo markaan shaqaysanaya xoogaa haddana hanti kalaan isku aadistay dukaan kalaan furtay dukaankii kale haddana dhowr bilood anoo jooga haddana la yimid waa layga gubay haddana waxaan sameeyey baabuur baa haddana shaqaalaan dib u galay xoogaa baan shaqaystay baabuur baan gatay waxaan bilaabay inaan alaab wareejiyo iyo dukaamada alaabaha ku wareejiyo maalin baa anoo dukaan alaab dhigaya intii la yimid baa macal baabuurkayga laga qaatay waxaan haystayba bas waxaa dhacday haddana shaqaalnimaan galay anigoo sidii shaqaalnima yaraan saaxiibanahay baan u shaqo tegey adigu xoogaa markaan shaqeeyey baan haddana waxaa weeye xoogaa shaqaystay waxbaan isku aadisay baabuur kalaan gatay alaab wareejiyo baan ku noqday ninaan saaxiibanahay oo aad waddanka iigu soo dhaweeyey oo la yidhahdo qorane cali xaaji ilaahay ha naxariistan ha ka waraabiye iyo habeen ciida ayuu isoo wacay rabadaanna ismaannaa maqlay wuxuu yidhi nuurow birri inaas aragnaan rabnaa ilow arrin muhiimaan kaa leeyahay waayahay baan habeenkii dhowr jeer buu isoo wacay waxaan ku yidhi niyow ayaanta imaada soo wici jirna walaalo maxaa dhacayo niyow maanta qalbigaa kuu saa jeeday ilaahay qudraddii labadii habeenimo markay taalay soo wacay ninkii qoranaa waa la dilay meeshii baan ka orday dukaankii baa tagay mise waa ninkii yoomeyda micnaha waxaa weeye waddanka waxaa ka dhacay South Africa micnaha qabuuraha ku yaala magaalada Port Elizabeth waxaa lagu qiyaasaa 700-600 Soomaalida lagu dilay waxyaalihii iigu darnaa intaan South Africa joogay waqtiga igu yar waan soo gaabinayaa waxa iigu darnaa oo weligay aan iloobeen hooyo iyo gabadheeda iyo wiilay dhashay iyo cunug yaroo 2 jir ah intii la googooyey oo cadcad loo jaray bacaha madowga qashinka lagu guray micnaha waxyaalihii iigu yaabannaa Soomaalida la gubo la dhaca dilka waxa way joogto male marka taariibka waxa weeye iyo waxa way waddan shisheeye horta qof walba waddankaaga wax ku dhaama ma jiro meel walba tag waxa weeye waddankaaga hooyo waxa sharaf aad kaga leedahay iyo haybad ma jirto marka walaalayaal aniga dhalinyarta soo tahriibaysa waxaan dhihi lahaa ama ha noqoto kuwan badda soo maraya ama kuwa South Africa hadda ku haminaya ama kuwa tahriib u socda horta tahriib waxa weeye waa halig waa naftaada haligaysa waxa weeye aad iyo aad baan la mahadcelinaynaa runtii taariikh aad iyo aad u cajiiba waqti dheer buu hadlay laakiin moodi maysid marka aad u sii fiirsato inuu 1 daqiiqo xitaa kale uu sheekaystay ilaahay samee imaan horta ka siina Allah yuxibbu maca saabiriin baa la yidhi muddo badan waa uu soo samray maanta kolley waxaan dareemayaa inuu meel Soomaaliyeed joogo haba ugu dhawaato Nairobi marka wixii alla u qoray waayi maayo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu caafimaad iyo cimri dheer dhammaanteen nagu gaarsiiyo isagana samir iyo imaan wixii alla uu maaragtay ugu tala